markaan soo sheegna ku sheegaya maanta iyo berri haduu ninkaygu leeyahay waa ku jecelahay oo naa kala qabo marnaba ma aaminayni jecel waa xaqiiqiyan anaga ilaahay noogu amuurin inaanu 10 nin guurguursan laakiin soo ma ugu diiniyeen waxa weeye afar burraga ilaahay u banay waxaan ku marka diinta laga baxo ay diinta ku dhoomataa diinta iskuma haysano diinta ilaahay waa wuxuu qoray oo xaqiiqa oo jirta iskuma haysano sababuhu ilaahay u keenay diinteenu waxay soo degtay 1500 iyo dheeraad sano ka hor sababuhu ilaahay u bariga u keenayna way cad yihiin oo ma wax qarsoon diintu ma qarsoona inaga mugdi gelina inaga wax marka ma waxa leedahay inaan guri la iskugu keenin mise yana laba guursaninba horta anigu shakhsiyan markaan iska hadlayo diinka ma hadlayo marka gurigiina diidanta laakiin anigu markaan ka hadlayo anigu guurka in laba qof la isla guursan karo mar haddaan dagaal lagu jirin mar haddaan gabadhaadi ka fogay mar haddii hargeyso oo nus saace aan koona ilaa koona ku tagay aynu wada deganahay waxaad naa kala ka daydayda waa gardaro marka ragaad soo gabiga meel la isla guurstay la fikirkaaga Sultan Abu Sufyan diiniyan ilaahay uu baneeyay diintu wax badan buu ilaahay baneeyay laakiin wax badan baan ilaahay nagu khasbin hadda ay ilaahay sidoo uga naxariis bareey bidaan diintii baad baneeysaa diintii iyadoo ilaahay inoo baneeyay baan nagu khasbin hadda rabitaankaaga maxaad ugu horeysiinaysaa diinta adigu ma adigu wax ma qal waxaan kugu eri diinta isagoo ilaahay baneeyay hadda ilaahay buu ku baneeyay walagu ogol yahay haddana ilaahay nagu ma khasbin waayo hadday qasab tahay gabigeena wax la oran afar guursado khalaas wala sheekaba ma jirteen Soomaha laakiin ilaahay ikhtiyaar buu nasiib waxyaabo badan oo ku dheernahay basharaadka kale oo abuuray ilaa malaa'ikta ikhtiyaar baan ninkaaga ka qaadi karo ikhtiyaarka ninkay kama qaadi karo haduu gabar kale laba qof oo waxaanu nahay bila aadana wax isku darsaday waayahay 1 minute inta ku daro wala laba ma yarasig wala fadlan ma yarasig ku dhageysanay badan iyo mar muhiimada aan ka hadlay waxa weeyaan markay leedahay ninkaaga wada ikhtiyaarka ka qaadaysa horta wax ikhtiyaar iska qaadi kara ma jirto laba qof oo bila aadan oo siman baanay waxbayna isku darsanay waa laba qof oo shirkadooda aasaastay oo kale hadii uu ku yiraahdo gabadha la guursanaya hibo hadii ku yiraahdo gabadha la guursanaya gurigeena waxa leedahay aniga markaa warqadeydaysi waa anigu hibo ahaan malihi dadka waa ku suldaankana daba dhiibin aniga ahaan ha shubahaya inta badan erayay soo arooriyeen dumarku واحد هذا suurtagal maaha ninku isagoo gabadhiisa hore jecelta dabana inuu jeclaa marka su'aal baa weydiinaya shantaada ciyaal ma jeceshay mise ma jeclid ninkaygu ma hayl ma haydi anu ma dhalin may sugan kaaga jawaab may waan kaaga jawaabay dhageysade soo jawaabti mar hay jawaabtaan kaaga jawaabi lan maxkamad ma taagnin waan wada sheekaysanayna may aan siro maqalno bila aadanka ilaahay uu abuuray dhageyso suldaano bila aadanka ilaahay wuxuu kala siiyay aaba iyo hooyo iyo nin iyo inaadeer iyo wala waa sabab qof walba in buu ku jira ilmahayga aniga jiirkayga ah ninkaygu waligiis lama midigi kara runtaan isu sheegay shaqo kuma laha kan aniga abuurmay weydiiyay baa raba inaad iga jawaabto maya caruurtayda intaada ciyaal ma wada jeceshay mise ma wada jeclid shantayda ciyaal waan wada jecel waan kala jeclaan karaa laakiin adigu maya ira dhageyso aad baad u maasantahay waa maya ma dalin xaasaskaaga wiilashii gudbinay waa bil aadan masalan sheekh maasantahay waan ku soo noqon doonaa sheekh Cabdiraxmaan Iyar sheekh Cabdiraxmaan wuxuu ka